السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناس صاحب السود وضع مركل لي برامج كنا ريورنت دوينا مجال برعو دوينا مجال برعو يسوي دين دونا سؤال ورنا صدر سفر كم دحونه كتكينيا هل كده دعوانا سنة برنا في مجال ما حد عدلاي اسماعيل هاي اسماعيل بلد حطت ما سنت اسماعيل ولا سؤال شو حكوا ورنا سفر كم دحونه كتكينيا فلا ركتها صدر ركتها تعرفتي تلوور ضد ولا صو صار warqad laga dhigayo maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan Jubaland in la barbarsimaya marka on dhalacanaya safarka kulli Kenya weyn bahdish wasiirka loo soo diray madaxweynaha wala wada garanaya wasiir Soomaaliya soo dhaweeyay marka safarka baadid baan ku joognaa Kenya wax kale kuma joogno baadid balkaas naga dhacdo baadilin kasto madaxweynuhu fiican yahay dhaqdhaqaaq muujinayo laakiin on waqtiga bahala looma cuno marka inuu isir astura haydo aad ma santaa walaal madaxweynuhu Kenya ku tagay soo aragtaa waa safar wanaagsan garanaysa waliba hadii wax laga weydiin waxaan ku talin lahaa inuu Muqdisho ka degadal walba dawladda uu qaabil karaa hadii xasan Sheikh Maxamed Taawi yeelo maarta uu macsuumo walba dawladda uu tagi karaa dhibaato ma laha Kenya waa baabi awlaadeen tagaba waxa wasaawi oo hawlsan walaal wandhawaay magacaygu Salmaan aad ma santaa walaal su'aashan ku weydiinay xoraansa soo aragtaa safarkii madaxweynuhu ku tagay Kenya safarka madaxweynuhu Kenya ku tagay safarka waxaan leeyahay madaxweyne inaanay u arkeen raggan meeshana uu bahdil kala kulmay ayaan arkayday meeshana daamo waa laga muuqdaa ma waa laga maqnaadaa haddana ka muuqan kareen sida Muuse bixiyo kale isaga magaranaysa ay loo jibo joogsanayeen inuu dadka joogay waa nagu ceebiyaan madaxweyne maaha madaxweyne meesha nagu kashitay iska soo noqon leeno Soomaaliland taada iyo hargeysadaadii iska soo noqon safarada iyo xilliga shaqadaadii maaha warigi baan sheegay laakiin siyaasadda danta keenaysa macnaha gobolada lagu sheegay siyaasadda danta keenaysa marka dambe iska ictiraaf doonaan waa tamala maasanta Axmed walaal su'aashu xoraansa safarka madaxweynuhu ku tagay Kenya soo aragtaa wallahi soo aragnaa waxa weeye waan ka xunaa anagu soo aragnaa magaraasa madaxweynaha Soomaaliland soo maray waxaan ku leeyahay Kenya tagay waxaan ka maqlay waa curo kaliya maqlaan magaraasa meesha si lagu bedelo waa arkaynay marka aad iyo aad ugu xunaa dawlad barcanahay bahdil aad iyo aad walaal kala kulmay hadba ma asanta walaal waxaan weydiinay oransa safarkii madaxweynuhu Kenya ku tagay soo aragtaa waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu la lumay dalka Djibouti safarkii uu ku tagay iyo kii uu Kenya ku tagay madaxweynaha qaranku wadadii qarannimo kala leexday dalka waana ka soo horjeednaa Kenya waxa weeyaan siyaasadda naga dhaxayso iyo Djibouti toona inagu xidhiidh waxaan loo lahayn Ethiopia wadadii lagu hagi jiray qaranka odaygu waa kala baydha deexantii mala markii hore la waday baa waxantii qaranka la waday markii hore wal xamanayay xusbigan wadani ee madaxtooyadiina wadani ku sawiray qaranka astaantiisiina waxba laga duway qaranka haduu madaxweynuhu markuu soo baxo waxa la wadaleeyaa calanka Soomaaliland wala laga tagay calanka xusbinimo lagu celiyo qarannimadii baan leeyahay dalka ka soo horjeeda calanka lagu sawiray madaxtooyada iyo meelo badan oo kaleba arrinka dib madaxweynuhu safarkan waa ka soo horjeeda anu wala magacaaga wadho wala gulid kale gulid aad ma santaa wala su'aasha xoraansa safarkii madaxweynaha Soomaaliland Kenya ku tagay dhawaan soo arkaysi safarka waxaan warkaa safar qurux badan oo madaxweynuhu insha Allah madaxweynuhu shaqeynaya waxa arkaa safar badan oo wadanka uu ku tagi doono inay harsan yihiin safarkaasna waa safarkii saddexaad uu baxo intii uu xilka hayay madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi marka insha Allah madaxweynaha dalka Maxamed Cabdilaahi Ciro dalka insha Allah malbu ka dhigay safarada boqolka casho ma santaa wala waxa ka horaansa safarka madaxweynuhu Kenya ku tagay bal soo aragtaa safarka madaxweynuhu Kenya ku tagay waxaan u arkaa si wacan deeqto inuu Afrika wada maro oo magaranaysa oo go'aansho ka helo aniga si wacan bay la tahay oo magaranaysa uu doono xagga nabadda baari doono iyo xagga ictiraafka labadaba baari doono oo waliba dadiskiisa ka baari doono anigu aad iyo aad baan u raacsana safarka oo raacsanay waa raacsanay safarka aad iyo aad baan u raacsana aad ma santaa way dhaway magaca xasaano حسن ما سنت ولا سؤال شو حرانسة سفر كم دحين كينيا كتجي صار عرقتها والله سفر كانوا كوكي مرة هراء إمارات كنا قام بدل ما كنا يسام مركان ما كنا وكينيا أنا مقديان وأنا أفريقيان مركان ريستيدو ليه إن بدل بينو تيك توك كبار بارني مركان مرة لبعض لبار بارت هاقو ما هينو مركان سكسر نقطة كورالنا سفر هاقو ما فرح سنة هذا وين سكسر نقطة إنه وين سنة كينو تشوفه من إنه كار كينو ما سنت ولا ودوه سؤال شو حكوا رانسا سفر كم دحين كينيا كتجي صار عرقتها
safarka madaxweynuhu dee safarka madaxweynuhu uu tagin shaqadiisa ha guto madaxweynuhu waa dawlad bay nahay waa dawlad dhammaystiran bay nahay macquul maa taas madaxweynuhu waa madaxweyne dalka dee iyaguna waa iska fahansan yihiin wixiinu cirro yahay masar cirrenu meesha marayo way fahansan yihiin marka masar cirrena waxa uu ka baawar weeye maamul goboleedkii waxan dee waa somalilan way garanayaan qadiyadeeda iyo meesha ka soo bilaabantay iyo taariikhdeeda marka loolama dhaqmi karay aniga ilatisaa soo dhow walaal maada magaca ku bilaabay magacaygu waa Ismaaciil Ibrahim Ismaaciil aad dood maasantay walaal safarkii madaxweynuhu ku tagay Kenya ee soo arkasay maciro kaasi waa jilxad weeyaan marna waa kii aaday Djibouti oo kii musabix soo helay ha iska noolaaday meelaha iska marmaray iska daay waa caruushadii weeyaan kaasi marka safar ugu fashil maadle meeyada cid soo dhaweysay waa bombale weeyaan kaas qoomka soo socday xaysiisiye Muuse u dirana Muuse soo celinayay kaaci Muuse cidaan hayn ma dhaantay wallaah aad dood maasantay walaal